بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسينا maanta waxaan ku baran doonaa hadii alla idmo barnaamijka loo yaqaano Luxis Audio Editor. إسلامنا يدعو إلى تسامح ووحدة فكلنا إخوان لا فرق بين أبيض وأسود. Luxis Audio Editor oo ah app aad u fudud kuna suuragelinaya in codkaaga aad duubtid kadib aad edit gareysid adigoo ka saaraya shucaaca iyo waxyaabaha aan loo baahnayn kadibna si tartiib mobilka aad u save gareysatid inta kadibna aad la wadaagtid asxaabtaada iyo social media iyo meelaha kale aad u baahan tahay marka barnaamijkan inta badan waxa laga helaa Play Store wadamada qaar marka lagama helo Play Store-gooda oo markaad raadisid ka arkimaysid marka hadii Play Store aad ka waysid wadanka aad joogtid insha Allah link ayaan hoos ku soo dhigi doonaa description-ka halkaas aad ka arki doontaa kadib toos ayuu ku soo furmayaa wuxuu ku aaday browser-ka caadiga ah browser-ka marka aad click gareysid link-gaas waxa ku soo furmaya marka screen qaabkan ah kadib waxaad ka dooranaysaa halka ku qoran tahay download ayaad ku dhufanaysaa saad arkaysid download ayuu ku weydiinayaa qaybta download-ka ku dhufanaysaa wuu soo degayaa marka file 16 MB waaye kadib open ayaad dhahaysaa qaybtan hadii aad isku day inaad install ku samaysid wuxuu ku dhahayaa saad arkaysid can't open file yani halkan kama furi karaysid install kama samayn karaysid si marka aad u furtid waa inaad tagtaa telefonkaaga qaybta download-ka waxaad tagaysaa my file kadib waxaad sii dooranaysaa download kadib listiga download-ka aad ka raadinaysaa saad arkaysid halkaas waa kan yaala Luxis Audio Editor waad ku dhufanaysaa kadib waxaad dooranaysaa install wax yar baad sugaysaa marka intuu ka soo degayo okay markuu install gareysan kadib waxaad dhahaysaa open